بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي خياري سود وهذا كسود وهذا جنرال كينوانو سيدو كلا حن سود وينا وحتى أصحابتي وعصب وحان الله وما سنتين وكوما سنتين سبسكرايب كينا ولا على فيسبوك بيت في تيك توك أنا جالس عندنا وحان لنا إذن كنا سود وهذا قاعد نفرق سود وهذا أخياري أصحابي ما أنتو حاربنا إن سوق هذا نو دور حكمة ضد وأنا أركي وحيتا إني يهين حكمة الحلقة إن حبون تاينا رقم جلينو إن شاء الله هدو إلهي ما يدهن أسبوع والبوحان سوق عادن دونا وحيتها إنتي أنك جارنا لبي إسد حكمة حكمة هاس وحانو أركا وحيتها إني يهين وح فائدة له أنا جانا سام مربضا إذن له وحي أن فائدة وأركو وحن جعلها إن إذن لو ذا وقت جينا بقى نضيع إن شاء الله حكمتنا سيدة وحا لغو مقعابا وحيتها وحا لدهابا ديدا قفك مؤمن كويان نبي قال الشيخ صلى الله عليه وسلم إن حكمته تهيبا ديدا قفك مؤمن كأه حكمتها مركا إن شاء الله عمانت إذن لو ذاك دونه وحكمة أراهو أم حكمته أي تذكر لهين ما دام أي تذكر لهين أي هذا تذكر مسلم أو غير مسلمة لكن مهمة وحيتها حكمة ما دام أي حكمة وناكسن عدة دون طبعا كتما دي وارد فايدي سكرا حكمة السيدو كالنتوت إلهي عدي وحكمة سيو إلهي وحسي وحيتها سيدو إلهي آيات القرآن كاي كجر سورة البقرة وكشيري ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إلهي قفكي وحكمة سيو وحسي وحيتها خير فربضا يا سلام سيدو هذا حكمة كوادي وحيكو صار سنتح حكمة كواد طبعا حكمة هالقاسي قرنهين ويبات كسن استعمالي دونا أنك آخرين دونا لكن إن شاء الله أسلوب تابي دونا وأنا شرح دونا سيدا أنا جا أفهمي أنا إن شاء الله يدبو شرح دونا وأنا أجهدت فرا بدن وإلى علمي بدن إجا أقوم بدن إجا معركتا ويأركسن إني إدعونيان لكن أنا جا إنتيرتا أي أقوم تيدو إلى أكتها إن شاء الله أنا إدين شرحه إدين كنن فائده إن شاء الله حكمة كواد وحلا ذا هالصمين وحاران adoo xujo ka dhiganaya dadka dhan way sameeyaan xasuusnoona in kaliya lagu xisaabin doono xigmadan waxayna leedahay waxay tahay wax xaraan ah ha sameeyeen adoo marmarsiyahaaga uu yahay waxaan dadka dhan way sameeyaan hadii aan sameeyo maxaa iga baayo sida Soomaalida mahmahdeeda tiraahdo kalintood balaayo lagu la qabo baas malahan arintaasna gabi ahaan buu arin qalada maxaa yeelay haddii aad dambiga ee dadka kala sameynayaan aad sameysid sababtoo ah dadka kala way sameynayaan iska sameey ogsoonuu biri ka maalin adiga kaligaa lagu xisaabina maxaa kamid ah marka waxyaabaha ay dadka isaga daydaan had tusaale waxaan soo qaadan karnaa waxay tahay heesaha dhageysigooda dad fara badan waxaa laga yaabaa inay u dhageysanayaan heesaha waa wax iska caadiyo dadka dhan way dhageystaan marka iska dhageyso waa iska dhageysanaysaa dadka dhan way dhageystaan maanta ogna ilaa marraxim rabbi mahan heesaha waa lagu ibtilaysan yahay marka haddii aad heesta iska dhageyso u dhageysatay waxaa dhacaysa waxay tahay birka maalin in adigana kaligaa lagu xisaabinay taas ogsoonow dembiga marka waxaa lagu leeyahay oradan waxay ku leedahay ha u sameynin dembi ee dadka kala sameynayaan adoo xujo ka dhiganayo dadka dhanba way sameeyaan waa rajeynaya xikmadaas inay fahanteen oraahda labaadna waxay ku leedahay aysan ku sirin muuqaalka dadka qaar maxaa yeelay qalbigoodu waa mid madow cagsina ku ah muuqaalkooda qurxan ee gacan ku sameyska ah arrintaasna been ma aha maxaa yeelay waxaaba jirtabo dadka loogu magacaabo quraanku uu ku magacaabay munaafiqiinta inay yihiin dad jir ahaan dad aad u qurux badan oo aad u dhisan oo aad u wanaagsan oo aragtiyaan markay aragtid aad la tacajubaysid aayad far badan oo quraan aan ka hadlay dadkaas laakiin qalbigooda maxaa ku jira maxay taa wasaq far badan baa ku jirta qalbigooda nifaaq wax ka daran oo qalbiga ilaha ma jirto maxaa yeelay nifaaq maca gaalnimada waa ka daran yahay gaalka isaga ka xun qofka haduu nifaaq qalbiga ka galo marka oraahdan waxay ku leedahay waxay tahay yeynan ku sirin muuqaalka dadka qaar maxaa yeelay qalbigoodu waa mid madow cagsina ku ah baa lagu yiri muuqaalkooda qurxan ee gacan ku sameyska ah waa xaqiiqo weyn arrintaas dad fara badan oo waxaa jira markii aad aragtid khayr aad ka maleysanaysid laakiin ah shar soconayso waa adigu qalbiga ma garanaysid qalbigaas waxa ku ogaan kartaa waxay tahay qofkan ficilada ka soo baxo marka qofka si mar walba waxa ku qiimeysaa waxay tahay falka iyo ficilka uu sameeyay maxaa yeelay falkaas iyo ficilkaas wuxuu ka tarjumaa waxay tahay waxa qalbigiisa ku jiro qofkan hadii uu yahay qof naxariis badan qalbigiisa ay naxariis far badan ku jirto waxa arkaysaa waxay tahay in dadka si dabacsan oo naxariis loogu dhaqmo laakiin qofkan hadii uu muuqaal ahaan qurux badan uu soo jiito laakiin cagsiga qalbigiisa uu yahay qalbi aan wanaagsaneyn waxa ka imaanaya qofkaas waxay tahay ficil xun marka qofkaas oo kale waxa haboon waxay tahay inaan ka digtoonaano iskana ilaalino anaga laftirkeenana waxa fiican waxay tahay inaan qalbiyadeena hagaajino
oo muuqaalka kaliya inaan ka fikirin iyo qaabka saa u muuqanayno laakiin sida akhlaaqda kala soo geli karta waxa qalbi nadiifnimada akhlaaqdeena inay hagaajino maxaa yeelay akhlaaqdu waa ficilkan sidiisa wuxuu ka yimaadaa waxay tahay qofku wax qalbigiisa ku jiro uu ku dhaqmaa laakiin qofka haddii uu qalbigiisa wax xun ku haysto waxa weeyaan dadkana wax xun uu kula dhaqmi doonaa waa rajeynayaa qoraahdaas labaadna inaa fahanteen qoraahda saddexaad oo maanta aan jeclahay inaan soo qaadano ahna tan ugu dambeysa waxay ku leedahay dadka kale farxadooda ku dhibi mayso inay qani yihiin risqigaaga yareyn mayso u noolow si nadiif ah dadkana u rajeey waxa aad naftaada la jeceshahay yaa salaam qoraah aad iyo aad cajiib u ah waay haddii aan fahanane faa'iido fara badanaa ku jirto inta dambe qoraahdan waxay iska shabahan waxay tahay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ahaa qofkiin ima rumeenin ilaa naftiisa uu la jeclaa ilaa nafta walaalihiisa uu la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel maxaa yeelay qoraahda inta dambe waxay ku tiri dadkana u rajeey waxa aad naftaada la jeceshahay marka halkaas waxay iska shabahan waxay tahay xadiiskaas nabiga sallallahu alayhi wasallam marka qoraahdan waxa ay ka tarjumaysaa waxay tahay dadka kale haddii ay farxaanne adiga farxadooda waxba kaa dhimayso haddii aad xanaaqsantahay ama adiga aad dhibantahay oo dhibaato ku nooshahay oo dadka kale farxadooda laga qaado dad macnaheeda maahan inaa adiga dhibaatadii ka bixiysid marka inay ku murgo geliso dadka kale farxadooda dee wax macnaaba sameyn mayso sidoo kale oraada waxay ku leedahay waxay tahay inay dadka kale qani yihiin risqigaaga yareyn mayso xaqiiqo weyaan arrintaas dadka kale haddii irsaaqada laga yaray adimu ama irsaaqadii lisawaamaya marka waxaaba qalad eeba inaad kale irsaaqadooda yaraanteeda iyo badnaanteeda inay ku dhibto maxaa yeelay adiga risqigooga badan adiga risqigaaga yareyn maysaa lagu dhahay halkaas marka waxaa ka qaadanaynaa waxay tahay in haddii aad aragtid qof walaal ah risiq ahaan adiga kaa risiq ballaaran inaa ilaahay u barisid oo tiraad ilaahiisa u barakee anigana ilaahu wax lamida isii ama ilaahu anigana irsaaqad xalaala isii halkaasaa kaa deeqda barkii aad qofka walaalkaa xasdi laheyd haddii aad xasididna dee waxba qofkaas ka dhibi maysid oo risqigaa mar walba ilaahaa qeybiya adna qeybtaadaad helaysaa asna qeybtiisuu helaya waa rajeynaa oraahda saddexaadna inaan fahanay insha allah aan dhaqan gelin doonane haddii aan si yaro kooban u guud marno saddexdii oraahood ee maanta aan soo qaadanay tan koowaad waxay ku leedahay ha sameynin wax xaaraan ah adoo xujo ka dhiganayo dadka dhan way sameeyaan xasuusnowna in adiga kaligaa lagu xisaabin doono tan labaad waxay ku leedahay yaynan ku sirin muuqaalka dadka qaar maxaa yeelay qalbigooda waa mid madow cagsina ku ah muuqaalkooda gacan ku samayska ah tan saddexaadna waxay ku leedahay dadka kale farxadooda ku dhibi mayso inay qani yihiin risqigaaga yareyn mayso u noolow si nadiif ah dadkana u rajeey waxa aad naftaada la jeceshahay akhyaar asxaabey waa rajeynaa saddexdaas oraahood inaan ka faa-iidnay ayna yihiin kuwo aan waqtigiina iyo waqtigaygaba aan ku dayicin laakiin wax nacfi ah noolah waa mahadsantihiin waxaa ku mahadsantihiin daawashadiina sida quruxdana ay la socotaan insha allah videogan video wixii intaan kulmayno waxaan idinkaga tegaya waxay tahay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu